nin yaa maalin aroos nagala qayb galay waa nin professor ah oo gaal cadaan Mareykan ah wiil uu dhalay oo muslimiin baa gabar Soomaali ah aroosay marka maalintiiba arooska la isku fahmi waa uu xanaaqay uu nala dagaalamay uu nacay xataa xafada dhexdeedii dadkaan saan waaye dad Afrikaan oo madow oo saan ah wiilkiisii buu wuxuu isku day gabadha inuu diido laakiin wiil gabadhi waa lagu meheriyay markii dambe finally waa process dheer kadib habeenkii baa masaajidka la yiri maalintii inta lagu kartay habeenkii baa masaajidka la keenay si gabadhi loogu meheriyo ana gabadha ku meheriyay markuu masaajidka soo galay kursi baa gadaal loo dhigay ninka aaraturka iyo kibirka iyo xanaaqa ka muuqda wad yaabaysa kursi buu ku fariistay salaada cishaa la gaar salaada cishaa tujiyay salaada markii laga baxay buu asagoo ilmeynaya buu soo kor istaagay markaasuu wuxuu igu yiri waadiga ooysay maxaad igu samaysay saasuu ila hadlaya markaasaan waxa kuma sameyn maxaad akrinaysay markaasaan waxaan akrinayaa quraan hadalkii ilaahay oo quraan markaasuu mikrofoonkii uu la booday dad ma masaajid ku tukanay markaasuu wuxuu yiri aniga waxaan idin weydiinayaa horta wixii maanta dhawaa idin xanaaqsana laakiin markaan wajigiina arkay iyo waxaad akrinayseen iyo saad u nooshihiin buu yiri hadda waan idin jeclaaday wixii banaanka markaan soo degayay oo masaajidka soo galayay waxaan arkaa buu yiri maamo maxaadara jirtay masaajidka jirtay habeenkaas waxaan arkayaa buu yiri maamo van wadata muddo banaanka taagnaa buu yiri 5 ama 4 cunug bay wadaa way kala cararayaan way qoslayaan way ciyaarayaan ayadu wixii waa qoslaysaa masaajidkay soo galayaan waxaan arkaa buu yiri nin iyo naag baabuur ka soo wada degay oo ciyaal tiro badan daadinaya masaajidkay soo galayaan mid kasta waa qoslaya hadda wajigiina dhanbooda waa qoslaysaa aniga wixii kaniisada aan tago saan u dhannahay nimanka single fathers baan nahay naagahana waa single mothers qof la hadla kuma jiro mid kasta waa xanaaqsan yahay marka nimanka aniga waxa idin weydiinayaa sirta noloshaad fahanteen waxa habiga idin ka dhigay ayna idin lacag haysanin oo qaxooti tihiin waxaas ku dhaganaada buu yiri waxaad ku nooshihiin saacado run ah ba ku nooshiin annaga lacag haysana buu yiri qof la hadla kaniisadeeda kuma jiro qof faraxsan ma arka buu wajigiis mid kasta buu waxaan aqsay dhinac buu jeeda fiiri waa basiid qofkaas waa saciid